Assalaamu calaykum soo dhawaada dhammaan saaxiibada aynu halkan ku saaxiibnay. Maanta cashirkeena waxaanu ku baran doonaa sida loo sameeyaa replace video, laba muuqaal sida la iskugu kala bedelaa. Sidoo kale keyframe sida loo isticmaalaa. Sidoo kale waxaanu baran doonaa sida sawir loo dhaqaajiyaa ama logo sida loo dhaqaajiyaa. Sidoo kale waxaanu baran doonaa sida laba muuqaal isku garab dhigaa. Sidaas la mid ah waxaanu baran doonaa sida sawir remove pg loogu sameeyaa. adigoo kaabkadka gudihiisa ku jira sida sawir remove page loogu sameeyaa background sawirka sida loogu jaraa. Haddii aad rabto inaad iska iibiso TikTok ama aad iibsato kaliya luuqa iga soo qor TikTok. Sidoo kale channelka iyo Telegramka join soo dheh. Kaabkadka soo furo din markuusan ku soo saaro new video ka dooro kadib waxaa samaysaa muuqaalka ay soo gasho. markuusan ku soo saaro markaan waxaan sameynaynaa replace video marka ugu horeyso. replace video si aan u sameyno muuqaalka one time click click markaas ay dhanka u soo soco waxay raadisaa replace video halka ay ku qoran tahay. replace halka ay ku qoran tahay then replace tao. min muuqaalkin waxaan ku bedelan doonaa muuqaal kale. click then confirm tao. muuqaalkii hore noogu jiray uu baxmay sida aad u jeedaan. hadeerta waxaa noogu jira muuqaalkii hadeerta aynu soo dooranay. sidaas ayaa loo sameeyaa replace video. sidoo kale waxaanu sameyn doonaa sawir inaan dhaqaajino animation inaan ku sameyno sawir ama logo noogu jirto kaabkadka. marka waxaanu dooran doonaa balasta yar halka ku taalo saan sawir u soo gelin halkaas ayaan taaban doonaa balasta min qaybta photo ka soo door sawirka rabto. marka aad taawato remove page ayaan ku sameyn doonaa. kuwan click then xagga u soo soco remove page taawaden remove page then waxaa kasii doorataa how to remove. kasii door then background keenisaan ayuu noogu jaray. then waxaa sameyn doonaa inaan ku sameyno animation inaan dhaqaajino sawirkan. hadda sawirkan si aynu u dhaqaajino waxaan u baahanaa inaan adeegsano keyframe wax loo yaqaano. keyframe sawirka one time click then keyframe halkaas ay ku soo muuqanayaa. cashirkeena sidoo kale waxaanu ku baran doonaa keyframe. daawada waxaad ogaataa animation walba la sameynayo waxaa ka qayb qaata keyframe. haddaba waa maxay keyframe? keyframe waxa uu kuu ogolaanayaa inaad objectiga ama sawirka bidix iyo midig aad u dhaqaajiso, sidoo kale kor iyo hoos, iyo sidoo kale inaad sameyso zoom iyo zoom out. waa maxay keyframe? keyframe waxa uu ka qayb qaataa dhaqdhaqaajinta sawirada sida logooyinka iyo wax la mid ah. haddii aad sameynayso zoom waxaad u baahantahay inaad adeegsato keyframe. haddii aad sameynayso zoom out waxaad u baahantahay inaad adeegsato keyframe. sidoo kale haddii aad sameynayso inaad sawirkaaga bidix ama midig u dhaqaajiso isla markaa waxaad u baahantahay inaad adeegsato keyframe. haddaba keyframe si aan u isticmaalno waxaan u baahannahay inaan calaamad yar soo doorano. xagga ugu horeysa imaw sawirkaaga xaggaas marka imaato click then keyframe dooro wax yar siko then haddana keyframe kala dhig. keyframe-ka labaad imaw then xagga u dhaqaaji wax yar ka siko then keyframe kala dhig then wax yar ka sii siko keyframe kala xaggan dhig. hadeertan haddaan isla eegno sawirkeen waxa uu sameynayaa animation wax loo yaqaan ama dhaqdhaqaaq. ma aragtaa marka ugu horeysa wuxuu aadayaa dhanka bidixda then positionkiisa ay kusoo laabanayaa. labada keyframe u dhexeysa waxaa u baahan tahay smooth inaad geliso graphic taawaden graphic halkaas ayaa laga isticmaala. graphic waxa uu ka qayb qaataa keyframe-ka inuu si wanaagsan u dhaqdhaqaaqo. graphic halkaas ayaa laga isticmaalaa.
one time click si graphic in xaga soo soo waxa ka sii doorataa quit out xaga ku qortaay quit out ka sii dooro then tick saar every keyframe walba waxaad sameysaa waxaad dhigtaa quit out xaga soo soo then quit out ka sii dooro haddeerta waxaan sameynay replace video sidoo kale keyframe qaabka loo isticmaalo ayaan baranay sidoo kale waxaanu baranay sida loo sameeyo animationka wuxuu u kala baxaa labo animation mid keyframe ah iyo mid animation caadi ah haddaan sawirka kalik siino xaggan hoos waxaa nooga muuqda animations xaggaas hoos wax ka muuqata animations waxa loo yaqaano haddii aad keyframe isticmaasho waxaad samaysay animation sidoo kale haddaad isticmaasho animation isla markaa waxaa samaysay wax loo yaqaan animationka waxa uu leeyahay qaybo badan fade in soo galistiisa ayuu ka qayb qaataa sidoo kale kan slide up hoos inuu kasoo galo sameynaa sidoo kale kan wuxuu sameynaa swing button ayaa loo yaqaanaa green inuu ku daro intaan ayuu leeyahay in ayuu leeyahay iyo out iyo sidoo kale waxa loo yaqaan combo waxa weeye muuqaalka inta socdo dhan baalkan uu soconaa wax ka digaamaan marka inta rabtaa saari kartaa calaamada hoose laga maamulaa calaamadaas hoose halka ku taalo ayaa laga maamulaa haddii aad rabto inaad iska dejisan halkaas kaliya taabanaysaa nan meesha ku qoran tahay nan everything nan ka dhig wax ku saara malaha deertaan animationka saasaa loo sameeyaa sidoo kale waxaan sameyn doonaa inaan laba muuqaal isgarab dhigno kaliya waxaad u baahantay inaad soo doorto calaamada balaasta din muuqaalka ay soo gasho markaa muuqaalka soo gasho sidan ayuu ku noqonayaa laba muuqaal oo isgarab yaala ayuu ku noqonayaa sida halka idinka muuqato laba muuqaal walba u dhaxay waxa loo yaqaanaa transition calaamada yar cadaanta ee halka ka muuqata waxa loo yaqaanaa transition laba muuqaal wax u dhaxeeya way haddaad kalik siiso calaamada yar ee halka ka taalo transition scan ayuu ku soo saarayaa labada muuqaal kala gudubkooda markii labada muuqaal ay kala gudbayaan wax u dhaxeeya ayaa loo yaqaanaa transition intaan oo dhan mid ka rabta ka dooran kartaa hadeertaan kaliya baroow ayaan ku sameynaynaa overlay wax ka sii doorata black fade transitionka insaan ayuu noqonayaa mujida haddaan isla eegno sidan ayuu noqonayaa transitionka sidoo kale okay waa mahadsantihiin dhammaan asxaabta muuqaalkiin halkaas ayuu ku egyahay